dhowr iyo 10 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay goob dalxiis oo barafka lagu ciyaaro oo ku taala dalka Switzerland. Dab xoogan ayaa dilay 10 qof halka in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay baar ku yaala goob dalxiis oo barafka lagu ciyaaro xilli dadku ay u dabaaldegayeen soo galitaanka sanadka cusub saacadihii hore ee subaxnimadii Khamiista sida ay booliska Switzerland sheegeen. Haddaba maxaa dhacay? Boolisku waxay sheegeen in dabku uu qarxay 1:00 habeenimo kana kacay Lee Constellation oo ah baar ku yaala bartamaha magaalada dalxiiska barafka ee raaxada ee Crans-Montana kuna taala koonfur galbeed Switzerland. Arrintan ayaa argagax weyn ku abuurtay dadka oo dhan maadaama ay ku soo beegantay xilli ay dadku farxad iyo damaashaad ku jireen. Sida ay xasuusinayaan diiwaanada taariikhiga ah, qaraxii loo arko kan ugu weyn taariikhda Switzerland ayaa dhacay bishii December 1947 markaas oo keed hub ah uu qarxay. Halkaasi waxaa ku jiray ilaa iyo 3,000 oo tan oo rasaas iyo hub ah oo ay lahaayeen ciidamada Switzerland xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, kuwaas oo ka sareeya deegaanka Midlos. qaraxaasi wuxuu dilay 9 qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale bishii Febraayo 1970 bam ayaa ku qarxay diyaarad ay lahayd Swisser oo ku sii jeeday Israa'iil, taas oo keentay dhimashada 39 rakaab iyo 9 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Ilaa iyo maanta lama oga cidda ka dambaysa weerarkaasi. Warbaahinta maxalliga qaarkeed waxay xilligaasi wariyeen in kooxo ka go'day ururka xoreynta Falastiin PLO ay mas'uul ka ahayd qaraxa, balse arrintaas weligeed lama xaqiijin, caddeyn rasmi ahna looma helin. Dhanka kale, kumanaan qof ayaa banaanbaxyo ka dhigay Turkiga maalinta sanadka cusub iyagoo taageero u muujiyay Gaza. Kumanaan mudaharaadyaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyagoo taageero buuxda u muujinaya shacabka Gaza. Banaanbax la mid ah kan ayaa sidoo kale ka dhacay sanadii hore waxaana soo abaabulay Bilal Erdogan oo ah wiilka madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Maanta dadka waxay doonayaan in ay muujiyaan garab istaagooda iyagoo ka faa'iideysanaya maalinta ugu horeysa ee sanadka cusub, ayay tiri Sinem Kazoglu oo ah wariye Al Jazeera ee Turkiga ku sugan kana waramaysay Istanbul Khamiistii. Kazoglu waxay intaa ku dartay in naadiyada kubadda cagta qaarkood ay sidoo kale taageerashooda ugu baaqeen inay ka qayb qaataan banaanbaxyada. Waxayna xustay in arrintani Falastiin ay tahay qodob midaysa bulshada Turkiga, isla markaana taageero ka helaya dhammaan garabyada siyaasadeed ee dalka, laga bilaabo xisbiga talada haya ee AK Party ilaa iyo xisbiyada mucaaradka waaweyn. Mudaharaadyaasha oo isugu yimid ka hor waabariga ayaa kula kulmay masaajidada waaweyn ee Istanbul sida masjidka weyn ee Aya Sof, Sultan Ahmed, Fatih Suleymani iyo masjidka cusub ee Amino, halkaas oo ay kaga dhawaaqeen baaqiyo ay ku dalbanayeen in la joojiyo waxa ay ku tilmaameen xasuuqa ka socda Gaza. Qaar badan ayaa lulaya calanka Turkiga ee kan Falastiin iyagoo muujinaya walaaltinimo iyo garab istaag. Geesta kale, Zohran Mamdani ayaa si rasmi ah loogu dhaariyay xilka duqa magaalada New York, xaflad aan horey loo arag oo ka qabsoontay saldhig militari taariikhi ah oo ka mid ah tareenada dhulka hoostiisa mara, taas oo astaan u noqotay bog cusub oo siyaasadeed iyo mid taariikheed u furmay magaalada New York. Zohran Mamdani ayaa si rasmi ah u noqday duqa magaalada New York wax yar kadib saqdii dhexe ee habeennimadii Khamiista kadib markii loo dhaariyay xilka. Xaflad ka dhacday saldhig tareen hoosaad oo taariikhi ah balse hadda howlgab ah kuna yaala magaalada Montana. Mamdani oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee Muslim ee maamulo magaalada ugu weyn Mareykanka. Markii la dhaarinayay waxa uu gacantiisa saaray kitaabka Quraanka Kariimka, taas oo muujinaysa iimaankiisa iyo qiyamkiisa uu aaminsan yahay. Runtii tani waa sharaf iyo fursad aan nolosha oo dhan hal mar ku soo ururtay, ayuu Mamdani ku sheegay hadal kooban uu halkaasi ka jeediyay. Xafladda dhaarinta oo ahayd mid gaar ah kana fog indhaha dadweynaha waxaa fulisay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka New York, Letitia James oo ah saaxiib siyaasadeed oo dhow. Waxa ay ka dhacday saldhig hore ee City Hall, mid ka mid ah saldhigyadii ugu horeeyay ee tareenka dhulka hoostiisa mara, kuna caan ahaa saqafyada qaloocan ee quruxda badan. Hadaladiisa ugu horeeyay ee uu jeediyay isagoo oo duqa, Mamdani waxa uu sheegay in saldhigan hore uu yahay markhaati cad oo muujinaya muhiimadda uu gaadiidka dadweynaha u leeyahay firfircoonida, caafimaadka iyo dhaxalka taariikheed ee magaaladeena, ayuu yiri. Isla hadalkaas waxa uu ku dhawaaqay magacaabista taliyaha guud ee waaxda gaadiidka Mike Flynn. Ugu dambeyntii duqa cusub ayaa hadalkiisa ku soo xiray isagoo dhoola cadeynaya
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiina mar dambe ayaan idin arki doonaa hor inta uusan jaranjarooyinka kor ugu bixin. Mamdani mar kale ayaa loo dhaarin doonaa si ka balaaran oo rasmi ah xaflad dadweyne oo ka dhici doonta City Hall saacadu marka ay tahay 1:00 duhurnimo, waxaana dhaarin doona senatarka Mareykanka Bernie Sanders oo ka mid ah halyeeyada siyaasadeed ee Mamdani aadka u qadariyo. taasi kadib waxaa xigi doonta munaasabad dadweyne oo farxadeed taasi oo loo yaqaano Block Party oo ka dhici doonta wadada Broadway, gaar ahaan qaybta loo yaqaano Canyon of Horrors oo caan ku ah dabaaldegyada waraaqaha Ticker Tape Brothers. Mamdani waxa uu hadda wajahayaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu culus uguna daalka badan siyaasadda Mareykanka, isagoo noqday siyaasi si weyn isha looga hayo dalka oo dhan. Marka laga soo tago inuu yahay duqa muslimka ee ugu horeeya New York, Mamdani sidoo kale waxa uu duqi ugu horeeyay asal ahaan ka soo jeeda Koonfur Asia, kan ugu horeeyay Afrika ku dhashay isla markaana 34 jir ah, taas oo ka dhigaysa duqa ugu da'da yar ee magaalada soo mara 10 sano. Ololihiisa doorashada oo ka dhigay ereyga la qaadsiin karo ama loo yaqaano affordability mid hadal heen ka noqda dhammaan dhinacyada siyaasadda, ayuu hanti wadaag dimuqraadi ah Democratic Socialist ahaan ku ballan qaaday isbedel weyn. Siyaasadiisa waxaa ka mid ah xanaano caruur oo bilaash ah, basas bilaash ah, kirada guryaha oo la hakiyo qiyaastii 1 milyan oo qoys, iyo tijaabo dukaamo raashin ah oo ay magaaladu maamusho. Hase yeeshee mas'uuliyado kale oo culus ayaa isna sugaya maareynta qashinka, barafka, jiirka iyo in isaga lagu eedeeyo dib u dhacyada subwayga iyo godadka wadooyinka. Mamdani waxa uu ku dhashay Kampala, Uganda, waa wiilkii film sameeyaha caanka ah Mirin Nair iyo aqoonyahan Mahmoud Mamdani. Qoyskiisu waxay u guureen New York markii uu 7 sano jir ahaa, isagoo ku barbaaray magaalo ka soo kabanaysa dhacdooyinkii 2011 xilli ay muslimiintu mararka qaarkood dareemi jireen inaanu si buuxda loo soo dhaweyn. Waxa uu muwaadin noqday sanadii 2018 kahor inta uusan xil u tartamin. Mamdani waxa uu ka shaqeeyay ololayaal siyaasadeed oo ay wadaagaan musharaxiin dimuqraadi ah. Sanadii 2020 waxa uu ku guuleystay kursi golaha baarlamaanka gobolka State Assembly isagoo matalaya qayb ka mid ah degmada Queens. Mamdani iyo xaaskiisa Rama Duwaji ayaa ka guuri doona guri hal qol oo kiradiisu ay xadidan tahay oo ku yaala degmooyinka banaanka magaalada si ay u degaan hoyga rasmiga ee duqa oo ku yaala Manhattan. waxa uu dhaxlayaa magaalo dib u soo kabanaysa kadib sanado badan oo adag oo saameeyeen cudurka COVID-19. dambiyada rabshadaha leh ayaa hoos uga dhacay heerarkii ka hor faafitaanka. dalxiisayaashu ay soo laabteen, shaqo la'aanta oo aad u kacday xilligii faafitaanka ayaa mar kale hoos u noqotay heerarkii hore. si kastaba ha ahaatee, waxaa jira walaac xoogan oo ku saabsan qiimaha sare iyo kirada guryaha oo sii kordhaysa. waxaa kale uu la tacaali doonaa madaxweynaha jamhuuriga ee Mareykanka Donald Trump inta lagu guda jiray tartankii doorashada duqa. Trump wuxuu ku hanjabay inuu jari doono dhaqaalaha federaalka ee magaalada haddii Mamdani uu ku guuleysto kursiga, isla markaana uu ku fikiray in ciidanka ilaalada qaranka loo diro New York. si lama filaan ah, Trump ayaa taageerayaal iyo mucaaradba uga yaabiyay kadib markii uu ku casuumay Mamdani aqalka cad kulan bishii November ka dhacay oo uu noqday mid degan oo saaxiibtinimo leh. waxaan rabnaa inuu shaqo weyn qabto, anigu waan ka caawin doonaa, ayuu Trump yiri. hase yeeshee, khilaafaadka u dhaxeeya labadan hogaamiye ayaa la filayaa in mar kale soo laab maadaama si weyn ay ugu kala aragti duwan yihiin siyaasado badan, gaar ahaan arrimaha socdaalka. Mamdani waxa uu sidoo kale wajahayaa shakiyo mucaarad ka imaanaya qaar ka mid ah bulshada Yahuudda ee magaalada New York, kuwaas oo ka biyidiidan dhaliishiisa ku wajahan Israa'iil. tan iyo markii doorashadiisu ku guuleystay duqa cusub iyo kooxdiisu waxay ku jireen diyaar garow xil wareejin ah, iyagoo hareeraha ka geliyay khubaro waayo arag ah oo hore ugu soo shaqeeyay ama uu la shaqeeyay maamulka magaalada. taasi waxaa ka mid ahayd ku qancinta taliyaha booliska magaalada Jessica Tisch inay sii joogto xilkeedii. tallaabada dejisay walaaci ay qaadeen ganacsatada, kuwaas oo ka baqayay in maamulka cusub uu wado isbedel aad xaq jir u ah oo dhanka amniga ah.